kulan waxaana wanaagsan daawada kusoo dhawaada barnaamijka xog waran oo aan kaga hadlayno maanta xaaladii guud ee deegaanka Soomaalida magaalada degmada Shabeelle oo shalay isku dhac uu ka jiray u dhaxeeya maamulka degmada iyo dad shacab oo gadooday sidoo kale xoog ka soo cusboonaaday dagaalka gobolka City ee u dhaxeeya Canfarta iyo deegaanka Soomaalida iyo gobol cusub oo dowlad deegaanka Oromia ay magacaabeen ay sameeyeen oo deegaanka Soomaalida xal leh xogaas waxaa soo dhigay Muxuudin Xarago oo barnaamijka ugu heliya Muxuudin bal soo dhawow oo maxaa xogaas ugu dambeeyay jiba wad mahadsan tahay saad hore u sheegtayba deegaankeena dagaalo iyo waxyaabo badan baa ka jiray haddii aan ka horeyno magaalada degmada Shabeelle oo wax yar u jirto oo u maleynayna 20 kilomitir ka badnayn waan u maleynayaa ma hube magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka waxa ka dhacay gadood u dhaxeeya maamulka degmada iyo dad shacab ah wararka aan helayno iyo xiriirada aan sameynay waxay noo xaqiijiyeen in dadka si ay ka gadoodeen dhul ay rabeen in ay maamulka degmadu ay ka qaadaan dhulkaasi sida ay xoguhu sheegayaan xogo kala gadisan baa ka soo baxaya dadka qaar waxay leeyihiin dadka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada baa rabay inuu dhulka qaato marka qaabka uu ku qaadanayay bay su'aalo badan ka taagan yihiin marka wararku waxay sheegayaan in la rabay dadka shacabka intii lacag la siiyo in dabadeetana dhulka ay dawladdu la wareegto walow dawladda la wareegaysa maamulka degmada mise waxyaabo kale laga damacsan yahay halkaas aan wali ayna cadeyn laakiin in halkaas ay rabteen dawladdu ay la wareegto dadkana wax yar laga siiyo samirsiina waana sida deegaankeena inta badan kaba dhacdaba marka shalay waqti aan u maleynay galabihii ahayd baa isku dhacu bilowday isku dhacaasi gudoomiyaha oo ilaaladiisa wata iyo dad shacab ayaa isugu yimid meel marka meeshii gudoomiyuhu marka in dhulka lagu wareejiyo dabeetana qorshihiisa uga loo rabay marka dadkiina waxay dhaheen horey malaha waxay ugu heshiiyeen in lacag samirsiina saan u sheegay horeyba in dadka la siiyo dadkaasi dabeetana waxay dhaheen lacagtiina sii gudoomiye lacagtii marka gudoomiyuhu muuna siin halka gadoodka ka bilowday gadoodkaasi waxa uu sababay in ilaa 11 qof la dhaawaco waliba dhaawacyo dardaran ay soo gaadhaan wax dhimasho wali lama jeegin laakiin aduu dhaawacyo halisaba laga sheegay dadkaas 11 qof ma dadkii rayidkaaba mise isku dhamaan dad rayada marka isku dhaca iyo dhibka dadka soo gaadhay waxa u dhaxeeyay ilaaladii oo marka waxa la leeyahay gudoomiyaha dadka laftoodu waxbay gaarsiiyeen waxa soo gaadhay imka gudoomiyaha lama oga inuu la eegay laakiin gudoomiyaha laftiisa gacan qaad baa gaadhay inuu dadku ay gaarsiiyeen dadka shacabku ku dhufteen marka gudoomiyaha markii ay ku dhufteen ilaaladiisana dadkii bay iyaguna ku bilaabeen marka dadka inta badan xabad looma adeegsanin laakiin waxa loo adeegsaday qool iyo waxyaalihii kale lagu garaaci karay marka nabarada dadkaas ay soo dhigayeen baraha bulshada baa dakhara ka muuqday marka hada xaaladaasi intaas xaaladaas Shabeelle hadaan kaga gudubno maanta waxa laga sheegayaa gobolka City inuu dagaal ka dhacay maxaa xog ka haynaa new galbeedka City degmooyinkiisaas siiba galbeed waa kuwa iyagu la jaara mar walbana u dhagtaagayo dagaal la soo qaado Canfarta soo qaado iyo meel asal ahaanba nabad ahaan u deganba ma waa meel uu kol war la isku soo qaado colaad iska taag maalmihii u dambeeyay inuu iska taagnaa xiisadaasi laakiin maanta waxa la sheegayaa in dagaal toos lama sheegayo laakiin waxa la sheegayaa in nimanka Canfarta jabhada ahayd ay buurinta fuulan halka baasuukayaal ka soo rideen baasuukayaashaasi wax ku dhintay ma jiraan baan u maleynayaa dan xog ku hayo laakiin waa meel ay aad u aan joognaa oo ay ka soo lahaayeen oo saas duqeymaha ay uga soo wadeen buurta marka dagaalkaas marka madaxda ay u soo rideen dadka deegaanka ama ciidamada deegaanka mid ka jawaabeen dagaalka saan hore u sheegayba dagaal labada dhinac dhexmaray maanta ma jiro laakiin xuraanka waxa jira oo xusid mudan in ay labada dhanba laga dhigtaagayo iska xaalad dagaal uu ka caloosan yahay marka dhiilada wararka labada dhanba ka imanaya waa kuwa mar walba laga filan karo in ay xabad qaraxdo dadkuna ay dhibaato dhinacyo soo kala gaaraan Canfarta inta badan dadkooda shacabka dhib badan ma gaaro
laakiin de iyagu waa niman duulaan tagahoo dhul macnaha raadisa dadka shacabka baa dhibaato soo gaadha Soomaaliyeed galbeedka sugan marka ciidamaduna de way ka difaacaan deegaanka marka maanta wax jawaab iyo wax dagaal toos maadaama una dhicin dagaal madaafiican baa wax la isku soo turturo buur laga soo tuuran baa deegaanka Oromiya hadaan ku jirno gobol ayuu ku soo diray goboladiisa deegaanka oo xuduudka deegaanka Soomaalida weygiisu ay ka tirsan yihiin sida hadda aan xogta ku helin gobolkaasi suu yahay oo xagee degmadiisu ka tirsan yihiin oo qaabkee inaka bal labada deegaan qaabkee meesha xarun oo caqabado keeni karo maxaa kamid ah niyo waa run oo saad hore u sheegtayba maalin ilaa xalay iyo ilaa maanta iyo sheekada inta badan baraha bulshada iyo si guudba majaladaha warbaahinada haystay waxay ahaayeen gobolkan cusub ee lagu soo kordhiyay Oromiya saynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay walow intan dambe Mustafa deegaanka yimid ee abiyana qabsaday ay xiisada colaadda Soomaalida iyo Oromada ay hoos u yar dhacday oo inaan dib badan saas u jirin oo halkeedii canfirtu bedeshay haddana sanadihii ugu dambeeyayba siqitaan Soomaalida lagu hayay iska jira qowmiyadaha kale ee dalka de xuduudka la leh sida canfarta iyo nimankan kale Oromada oo imika markii hore iska badeganaa marka gobol Boorama in la dhahan umaleynaa Boormada bari wax saasaan umaleynaa gobolku inuu yahay intiisa badanna degmooyinka meesha de la odhanayo degmooyin baa loo ansixiyay waa tuulooyaashaasi marka deegaanka Soomaalida wax deegaanka Soomaalida hore u lahaa oo intiisii loo riixayay imika Oromiya intiisii siyaasadaysan loo hoosgeeyay kadibna de imikana ay degmooyin ka dhigeen meel degmooyin u qalanta ma waa meel gobol la rabo in xuduudda de lagu teedgaray kan Soomaalida oo Soomaalida waxa dhacdaa bood lagu riixaa marka reerka marka doonaysa inaad meesha ka yar durkiso ooda lagu garab qabtaa marka ood ku garab qabasho way gobol caadi ma gobolkaasi marka inta badan degmooyinku waa degmooyin xuduud la leh deegaanka Soomaalida magaalo madax waxa looga dhigay Nageyle markii hore Soomaaliya waa wada garanayna Soomaaliya laga qaatay Nageyle Booran baa la dhihi jiray oo Soomaaliya way degi jirtay waa meesha magaalo madaxda imika looga dhigay Mooyaala degmooyinkeeda ka mid ah Mooyaale waa magaalo Soomaalida waan garanayna walow ay de kala Mooyaaladu qayb ay kala leedahay sida ay tahay wajaalo kale oo xuduud kala leedahay oo qayb xuduudama kala leedahay kala leedahay qayb xaggan iyo Kenya qayb xagga Ethiopia qayb marka qaybahaas baa inna Soomaali degtaa inna Oromo degtaa marka in kamid ah qaybahaas baa degmooyinka gobolka kamid ah meel dhaw halkan magac yar leh oo halkan jinacsan agteedo si la sheegay 4 kilomitir u jirtaba meeshan tuli guulad miyaa mise jinacsan baa degmo laga dhigay Oromo hoostagaysa waa meel hada 4 kilomitir jigjiga u muuqata waa meel aad u dhow degma laga dhigay degmooyinkeeda kamid tahay meelo kale oo ay fara badan oo deegaanka uu la xuduud laho imika deegaankan waxaan ogsoonahay Oromada meelo badan oo kale leeyahay gobolka Daawo iyo ilaa gobolkan Liibaan Daawo degmooyinkiisa Imigradho Mawli iyo meeshan la yiraahdo ceelkar iyo ilaa raasaxata oo xaggan iyaduna ka tirsan gobolkan Fadhar waxay la leeyihiin Oromada xuduud baa la leeyahay marka degmooyin badan oo degmada saas marka dalka imika maadaama meelahan laga bixiyay degmooyin hore loo sii aqoonay ahayn waa tuulayaashii baa imika degmo laga dhigay magacyada oo bixin doonaan kulli iyaga dib ka sheegi doonaan malaynay laakiin imika lama garanayo marka degmooyinkaas yar yar ee markii hore tuulooyinka deegaanka ku teedsan baa degmo laga dhigay marka gobolka ilaa 12 degmo sheegan inay ka dhigan gobolka cusub hoostagay ugu dambeyn هذا سوق هو يا عقبة دتك ديانك الصومالية كلام كل مكان قول كعصب أوروبي سوق كريس. وسؤال في عن كل ديانك الصومالية دت صومالي وشعبا ولا لا يا نظام كلا قول لنا يندي نظام سويدين مدن هرتوي. دتكو صومالي واحد هذا ومن شيء مدح على الله. إما كمالها مرة كتشرو لقوم مرة ما يقوم إذا كلنت بدل السكول ليني. waa dhul la leeyahay ama madaxdii hore wareejisay ama hebelkaaba ka dambeeyay waa dhul uu la wareejiyo system ahaan lagu wareejiyo waana meelaha imika shacabkuna ku leedahay ku dhamaadeen marka inaga dhibaatada ugu weyn ee macnaha goboladan inuu keenayaan imika ama gobolka cusub aynu laga filayo waxa koow ka in boutry horta uu meesha yimaado
oo la isku boodriixo oo dee maanta haddii gobol kolkii horeba inagoon isku dhoweyn oo baali iyo waxaan noo dhoweyn ba markii hore ka cabanayna haddii maantana ku kalo oromo boroma waxa la dhahay oo isagana layna soo egdejiyay ay meesha ay keenaan waxay noqonaysaa in layna soo riixo markaas saynu sheegnaba degmooyinkiisa meel jigjiga wax yar oo 4 kilomitir aan ka badnayn xuduudka deegaanka Soomaalida baa degmo ka marka halkaasna waad garanaysaa oromaduna waa dad fara badan markaasi waxay halka qarka u saaran tahay in Soomaalida sidii degmooyin hore iyo dhul badan buu soo samriyay in boodriixu yimaado gobolkaas ha waxaa daawadayaal barnaamijka xog waran oo maxamed muhidiin kala qayb qaadanaya halkaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkan ku kulmi doona xiliga tagayna sidaas nabadgelyo